السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga waynu ku eegno hadba sida naadiyada qaaradda Yurub ay ugu soo dukaamaystaan suuqa kala iibsiga xilliga xagaaga. haddii aynu ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa heshiis kula jirta kooxda kubadda cagta ee Barcelona si ula soo wareegto ciyaaryahanka lagu magacaabo Frank de Jong. Man United ayaa la sheegayaa inay bixi doonto lacag gaaraysa 85 milyan oo euro ay kula soo wareegayso ciyaaryahankaasi, balse wadahadallada ay kula jirto kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la sheegayaa inay meel gabagaba ah marayaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa doonaysa inay bixiso 65 milyan oo euro oo horumaris ah, balse 25 ka haray inay doonaysa kooxda kubadda cagta Man United inay u bixiso qaab ku xiran ciyaaryahanka qabyaaladkiisa. sidoo kale waxaa la soo warinayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United inay heshiis la gaarto kooxda Feyenoord si ula soo wareegayso ciyaaryahanka lagu magacaabo Tyrell Malacia. Tyrell Malacia ayaa lagu waday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Olympique Lyon maadaama heshiis uu la gaaray, balse Man United ayaa dhaxda ka soo gashay oo afduubtay heshiiskaasi. waxaa la sugayaa ciyaaryahanka isaga inuu doorto labada kooxood Olympique Lyon iyo kooxda Man United kooxdii uu ku biiri lahaa. ciyaaryahankan iyo ciyaaryahan kale aan ka soo hadalnay ee la yiraahdo Frank de Jong ayaa isku wakiil ah, taas oo u sahlaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United inay heshiis la gaarto labada ciyaartoyba. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iska iibisay ciyaaryahanka lagu magacaabo Minamino isagoo ku biiri doona kooxda kubadda cagta ee AS Monaco. Liverpool ayaa heshay lacag 15 milyan oo euro ee ka heshay kooxda kubadda cagta ee AS Monaco. ciyaaryahankan ayaa la filayaa isla xagaagan inuu wareego kooxda kubadda cagta ee AS Monaco. sida uu qorayo wargeyska The Guardian, Arsenal ayaa la sheegayaa inay horkacayso heshiiska lagu doonayo ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Leeds ee lagu magacaabo Raphinho. ciyaaryahankan ayaa doorbidaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona maadaama ay ahayd riyadiisa inuu u ciyaaro naadiga mar uun, balse waxaa la sheegayaa Barcelona inay haysto dhibaato dhaqaale aysan soo iibsan karin ciyaaryahankaasi. sidaa darteedna Arsenal ay tahay naadiga horkacaysa naadiyada doonaya inay ciyaaryahanka la soo wareegaan. Arsenal ayaa la filayaa isbuucan gudihiisa inay wada hadal toos la yeeshaan kooxda Leeds si ay ula soo wareegaan ciyaaryahanka. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadana doonaysa inay soo gasho tartanka loogu jiro isla ciyaaryahankan lagu magacaabo Raphinho. waxaa la sheegayaa in Arsenal ilaa hadda aysan la kulmin naadiga kubadda cagta Leeds United qiimaha ay ku doonayso ciyaaryahankaasi. qiimahaas ayaa lagu sheegay inay gaarayso 65 milyan oo pound, balse Arsenal ayaa la sheegayaa inay ka gudbisay ciyaaryahanka lacag gaaraysa 50 milyan oo pound. sidoo kale waxaan ku jirnaa wararkii Arsenal ayaa la sheegayaa in 40 milyan oo euro ay u gudbisay kooxda Ajax. Arsenal ayaa doonaysa in ciyaaryahankan lagu magacaabo Lisandro Martinez ay la soo wareegto. ciyaaryahankan ayaa ka ciyaari kara 3 positionka koowaad oo ah left back ama garabka bidix ee daafaca. sidoo kale wuxuu ka ciyaari karaa daafaca dhexe ee dhanka bidix. sidoo kale wuxuu ka ciyaari karaa booska Thomas Partey oo ka ciyaara ee loo yaqaano difaaca qadka dhexe. ciyaaryahankan ayaa Arsenal doonaysa inay kala soo wareegto kooxda Ajax, balse Arsenal ayaa shalay ka gudbisay dalab 40 milyan oo euro. ilaa haddana dalabka lama soo diidin. waxaa la sheegayaa kooxda kubadda cagta Ajax inay ka fikirayso inay dalabka aqbasho iyo in kale. Gabriel Jesus ayaa maanta ku baasay tijaabada caafimaad ee uu mariyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo heshiis u saxiixay gaaraya 2027. sawir laga soo qaaday garoonka tababarka kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaaryahanka caafimaad ku mariyay ayaa la arkayay agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Edu oo soo dhaweynaya ciyaaryahan Gabriel Jesus. waxaa la filayaa maalinta Berita ama maalinta ku xigta ee Khamiista inay Arsenal ku dhawaaqdo inay si toos ah ula soo wareegtay ciyaaryahan Gabriel Jesus. waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka iyo la socodkiisa. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar, sidoo kale videoga like saar si uu asxaab fara badan u gaaro.